waxaan rabaa inaan mahadnaq iyo bogaadin ballaaran u jeediyo dhammaan bahweynta bulshada rayidka iyo civil iyo NGOs-ka oo aan marqaati ka nahay inay dabooleen dowrkii weynaa ee dowladda looga baahnaa muddooyinka la soo dhaafay sanadihii la soo dhaafay oo dhan oo dhinac kasta leh ayagoo waliba caqabado badan kala kulmaya arrimahaas waxbarashada caafimaadka biyaha cunnada dib u dejinta barakacayaasha nabadeynta dib u heshiisiinta xalinta khilaafaadka dowlad dhiska iyo qaybo kale oo lixaad leh shaqooyin badan aad u ballaaran oo bulshadu ay leedahay cilmi baarista ka mid ah oo ay ku soo biireen hay'ado badan ayaamihii u dambeysay oo runtii bulshada cudurrada haya iyo mashaakilaadka dul istaagayay marka dhammaan shaqooyinkaas way adkaayeen duruufo adag iyo xaalado adag ayaa runtii lagu soo shaqeeyey dad badan ayaa xubnahoodii ku waayey qaarna waaba ku dhinteenba oo aan ka xuseyn halkan elman oo sagaashamaadkii allah u naxariisto cabdiqaadir yaxye oo 2005tii lagu dilay nin weyn oo u ololeeya bulshada rayidka iyo xuquuqda dadka iyo in laga nabad la aado oo warlordskii iyo hogaamiye kooxeedkii dalkan ka jiray aad maaragtay howl badan ka hayay bulshada baraarujinteeda mudan iyo almir waxaa sharafiya sidaas in kale in kulankan shirweynaha qaran uu inoo qabsoomo si aan uga doodno iskaashiga suurtagalka ah iyo wada shaqaynta muhiimka ah u dhexeeya ururada bulshada rayidka ah ee qaranka iyo dowladda Soomaaliya ee ku aadan qorshayaasha dowladda ee la xiriira hirgelinta dowlad dhiska nabadda dib u heshiisiinta iyo serviceska kale iyo mustaqbalka qaabeynta mustaqbalka Soomaaliya lafteeda oo muhiim u tahay waxaan akhrinayay maalmahan inta shirkaan ku mashquulsanayn adduunka hadda xagee maraya cilmi baarisyada iyo daraasaadka iyo hay'adaha waaweyn ee adduunkuba waxay maalmaha oo dhan ku mashquulsan yihiin inay soo saaraan daraasaad wayna fadhiyaan hadda cilmi baarayaal waaweyn baan u jeedaa inay soo saaraan qaab social contract oo dhex mari kara bulshada iyo dowladaha waliba waxayna aad u fasirayeen lafdigan la yiraahdo governance ayaa aad u fasiraya oo qaarkood ay ugu magac dareen ku fasireen hanaaka xukunka salka ballaaran qaar waxay ku fasireen dowlad wanaag qaar kale waxay ku fasireen dowlad midaysan qaar kale waxay ku fasireen hanaanka xukunka cusub qaar waxay yiraahdeen hanaanka xukunka dhameystiran ee loo wada dhan yahay laakiin waxa lagu soo gabagabeeyay oo runtii la isku waafaqay ay u dhowdahay oo hay'addan munadamada tacaawun al-iqtisaadi wa tanmiya hay'adda la yiraahdo iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarka waxay ku fasirtay hanaanka xukunka salka ballaaran oo ay ku midaysan yihiin 3 components oo waaweyn oo dowladdii bulshada rayidka iyo ganacsatada oo wax maalgeliya saddexdaas ay ku midaysan yihiin oo halkaas ay ka dhalato shuraako 3 geesood ah oo u dhaxaysa saddexdaas qaybood yacni private sector-ka iyo civil society-ga iyo dowladdii private sector-ku wuxuu qaabilsan yahay inuu dhaqaalaha ka shaqeeyo waliba si xorriyad iyo competition xora inuu ku tartamo sida hadda dalkeena ka jirto kale oo aysan jirin cid gaar ah oo loo xiro ganacsiga dowladduna waxay ka shaqeynaysaa markaas inay damaanaad bixiso xorriyad in loo ganacsan karo in siyaasaadkii dhaqaaluhu ay qayb yihiin ganacsatadii oo ay fududeyso jawigii iyo siyaasaadkii iyo shuruucdii loo baahnaa inay halkaa ka shaqeyso civil society-guna waxay ka shaqeeyaan oo qaybta saddexaad ah inay ka qayb galaan dhaqdhaqaaqyada bulsheed kuwa dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed dowr weyn ay ka ciyaaraan inay saameyn ku yeeshaan siyaasadda dalka ee markaas shaqeynaysa marka shuraakadaas 3 geesoodka ayay qayb ka yihiin bulshada rayidka qidaaca private sector-ka oo dhaqaalaha ka shaqeeyaan runtii maalin dhaweeto dowladda iyo shir baa ku dhex maray xalane wiiga la soo dhaaf oo looga shaqeynayay sharaakada dhinaca ay ka yihiin ayaguna oo shirkadda ay kala yihiin dalka
guud ahaan shirkan wuxuu muhiim nooga yahay oo runtii dadka ka soo qayb galay hadda la sheegayay dalladaha kala duwan oo ilaa Somaliland, Puntland, Southka Soomaaliya, Centerka iyo ururo madax bannaan oo iskood isku abaabulay oo shaqeeya oo dumar iyo dhalinyaro iyo cilmi baarayaasha kala duwan bale. shirkan marka wuxuu muhiim noogu yahay haddii waagii hore sidii Shaatax uu sheegay gudoomiyay Shaatax dawladdu ay ahayd tan meerinays hadda dawladdu waxay ogashahay partnership in la shirkoobo ay ogashahay oo dawladiska maadaama firaaqii 30 sano ee la soo dhaafay ama 10 sano u horeeyay inta kale 23 dawlado ayaa jiray tabartoodu seerabta ha noqotay firaaqii weynaa oo aan marqaati ka nahay sidii loo buuxiyay oo bulshada rayidka ay u buuxiyeen iyo dhinacii kale hadda aan sheegayno private sector-ka oo asaguna telecommunication-kii diyaariyay oo diyaaradihii ay dalka socdeen oo dhinac kasta xawaaladuhu ay shaqeynayeen oo ayaguna gaabkaas buuxiyay oo gaab dawladeed oo weyn ahaa haddana civil society-gu ama bulshada rayidka iyo ururadeeduba runtii waxay buuxiyeen gaabkii u weynaa oo serviceski dawladdu ay u baahnayd oo dhan oo waxbarasho caafimaad dib u heshiisiin iyo dadka wacyigooda in kor loo qaado saxaafadda dhinac kasta runtii dowr weyn bay buuxiyeen dowrkaas muhiimka dawladdii marka hadda sidii Dr. Maxamed Xaaji Xildhibaan ku sheegay tartiib bay u buuxinaysaa dowrkeedii laakiin taas macnaheedu maaha in civil society la durjinayo isagana weli shaqadii way hayaan oo shaqo xoog leh oo ballaaran ayay hayaan laakiin waxaan rabnaa sharaakada meeshaan ka dhalanaysaa waxay tahay shaqooyinkii prioritization in loo sameeyo oo meel aysan civil society-gu tuulada cadalo la yiraahdo degmada cadalo la yiraahdo inaysan 20 urur hal shaqo ka wada qabanay in la yiraahdo shaqada hal la ballaariyo oo dawladdu ay nidaamiso shaqooyinka tirada badan oo la hayo oo mid walba meesha looga baahan yahay dalka in loo kala nidaamiyo dhaqaale badan oo ka badan miisaaniyadda dawladdana runtii civil society-gu way maamulaan oo si xawli ah u maamulaan oo si weyn bay u maamulaan dhaqaalahaasna marka in la nidaamiyo ayuu u baahan yahay iyadoo faragelin lagu sameynayn waxaan kaloo rabnaa inaan fududeyno serviceska dawladda mararka qaarkood waxaa loo arkaa ninkii xafiis lagu soo galo in uu isaguna dee siduu rabo ka yeelo oo isan u arag dadkan dad partner ah taas lafteeda inay fududeyso halkan wasaaraddii dhalinyarada wasaaraddii waxbarashada wasaaraddii cadaaladda wasaaradda haweenka dhammaan waa wada casuunay way qaarna way soo socdaan labada maalmoodna way nala joogi doonaan qaar howlwadana ka socdana way joogaan waxaan rabnaa sharaako xoogan meeshaas inay ka dhalato gaar ahaan innaga waxaa weeye oo wasaaradda arrimaha gudaha hadda halkan waxaa u badan ururada ka shaqeeya dawlad dhiska kuwa ka shaqeeya nabadda iyo dib u heshiisiinta kuwa ka shaqeeya soo dabaalidda xasilinta kuwa ka shaqeeya dawladaha hoose horumarintooda iyo hanaanka dimuqraadiyiinta iyo doorashooyinka dalka intaasoo dhan oo haddeertaan waxyaalo badan looga heshiiyey doorashooyinka ayaa halkan ku midaysan guud ahaan waxaan rabnaa wada shaqayn caafimaad qabta wada shaqayn mujwala oo labada dhinacba la is ixtiraamayo iyo iska warqab qorshayaasha dawladda laga qaybgeliyo civil society-ga shuruucda ayaga khuseeya oo hadda laga hadlay oo sharciga NGOs-ka iyo iyadana haddeertaan wasaaraddu gacanta ay ku hayso inaan rabno inaan talada ugu badan aan siino oo sharci la jaan qaadaya shaqadooda in uu noqdo sharcigaasi iyadana waa runtii gacanta ku haynaa mar dhowna waa laydin soo bandhigaya weli nagama soo dhammaan guud ahaan marka waxaan rajaynaynaa labada casho soo socota maanta iyo beriba oo halkan la isugu keenay markii aan howlwadanada wasaaradda la dardaarmaya waxaan idhi dadka aan la hadlayno waa dad naga aqoon badan oo xataa fieldiska kala duwan ee laga hadlayo haddii nabadeyn laga hadlayo iyo haddii dib u heshiisiin laga hadlayo iyo haddii dimuqraadiyiin laga hadlayo dhammaantood aqoon durugsan ayay u leeyihiin oo dad cilmi baarayaal oo PhD holders ayaa ka buuxa oo rag iyo dumarba leh marka yaanan u qaadan yaanan fududeysanoo u qaadan xoogaa dadoo wax loo sheegaye
dad noocaas aan uga xisaabtamaynaa annaguna marka waxaan soo xulnay tiim xooggan oo wasaaradda tiimka ugu xoogganaya oo la jaan qaadi kara arrintaas. waxaan rajaynaynaa labadan casho in waxaa jira dad khubaro ah oo civil society ka tirsan baa prestations leh. annaguna wasaaradduna waxay soo jeedin doontaa presentation ku saabsan arrimahan hadda iskaashiga iyo mawaadiic xiriir la leh oo waaweyn oo dowlad dhiskeenna iyo kulli iyo xiriir la leh, iyo inaan ka dabageyno civil society-ga wada jira dhammaan sanad iyo barkii hadda la soo dhaafay waxyaalihii dowladda u qabsoomo ugu waaweynaa oo shirka golaha wada tashiga qaranka ka soo baxay iyo itijaaha dowladda u socoto iyo dib u xoreynta dalku hadda uu ku jiro oo qeybta ka yahay oo ciidamadeennii iyo wiilasheennii iyo gabdhaheenniiba ay duurka ugu jiraan oo roobka ugu da-ayo oo qoraxda tirada badan ay ugu dhacayso. iyadana dee dowrka civil society-gu ay ku leeyihiin ma dowr silence ah. waagii hore waxaan arki jirnay haddii qof la dilo waayihii dowladdu intay daciifka ahayd in civil society-ga boorar soo qaadan jireen, laakiin maanta boqol qofaa la dilayaa civil society boor wadata maan arag. wiilasheenii iyo gabdhaheenii baa duurka ku jira, taageero tiro badan oo loo fidiyey maan arag. iyada naftirkeedu waxaa weeye kaalintii yani kooxahaas waa kooxo diidan civil society, diidan kooxo diidan gargaar in la gaarsiiyo, kooxo diidan inay ka shaqeeyaan hay-adahan goobaha ay haystaan. sidaas awgeed wax la dhowrto tiro badan oo hadda meesha yaallaa ma jirta. marka dhammaan mawaadiicdaas oo dhan ayaa la soo bandhigi doonaa oo ayadana ka dabageyn doonaa civil society-gu. ayaguna waxay naga dabageyn doonaan waxa ay hayaan oo la hulaaban yihiin. halkaasaa waxaa ka dhalanaysa marka wada shaqaynta loo baahan yahay oo u dambeysa, kadibna dee wada tashiyo madal iyo wada tashiyo xoogan ayaan isla jeexi doonaa. roadmap wada shaqayn ayaa la dhigi doonaa. aad iyo aad u mahadsantihiin. shirkuna waa noo furan yahay. waxaan rajaynaynaa dadka safarka ku yimid nagaansho wacan 2 beri oo aad joogtiin iyo 3 beri magaalada muqdisho aad timaadeen. magaaladii waa isbedeshay sidii hore maahan. waa nabad, waa dalxiisi kartaa. kolley barnaamijyo la idin kugu talagalaa jiro waa la idin dalxiisin doonaa. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.